waxaa kaloo salaan qiimo badan kan ugu diraya madaxweynaha dowlad goboleedka Saciid Cabdullaahi Dani iyo dowladdiisa dhammaanba waxaa kaloo aad iyo aad u salaamaya halkan salaan qiimo badan u marinaya dadkii aad iyo aad ila shaqeeyay dal iyo dibadba iskii barbar taagay aad iyo aad soo jeed habeen iyo maalin bay ila shaqeeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka abaalmariyo juhdiga iyo dadaalka ay bixiyaan waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran meel kastoo joogtaanba Allah idinku nabadgeliyo horta marka hore saxaafadda waxaan u sheegayaa qadiyadda Soomaaliland wax la isku quuqiyo maaha wax dadka lagaga naxiyo marar badan baad maqlaysay oo qofka leeyahay Soomaaliland buu ka yimi ama Soomaaliland ka soo shaqeeyay horta Soomaaliland waqtiina waa qaran Soomaaliyeed oo ummad Soomaaliyeed waa laga soo shaqeyn karaa anu de Soomaaliland ka soo jeedaa Soomaaliland baan ku dhashay Soomaaliland baan ku koray qof walba de waqtiin kursigan 220 beesha Ibrahim ayaa iska leh beesha Ibrahim waqtiin Soomaaliya sidii ku yihiin oo de leedin ka sheekeyn maayo gobol kasta oo Soomaaliyeed bay degan yihiin ku nool yihiin sidaa darteed qof kasta oo kursigan u tartamaya wuxuu ka iman karaa Soomaaliya gudaheeda iyo dibaddeedaba uu ka iman karaa Soomaaliland waxaan idin sheegayaa gaar ahaan warbaahinta marka arrinta Soomaaliland laga hadlayo dadka ha ka dhigin waxa loo jiray muufiya meel loo jiray dadka laga nixin jiray aniga fahamkan waan ka fahansanahay iyo kaad ka fahansantahay Soomaaliland kuma shaqeynayso waa dad tashaday waa dad aayahooda ka tashaday taas iyaga u taala anigu waxaan matalayaa dawladda Soomaaliyeed oo aan ku matalayaa maxaan ku radaa dawlad goboleedka Puntland kuraasida aad ogtahay doorashadan dadban waa iska ogtahay magaceedu waa doorasho dadban waqti ilmu markuu dhalanayo marna dabiici buu ku dhashaa marna muxuu ku dhashaa de hooyada baa laga soo jaxaadhay operation buu ku dhashaa doorasho dadban weeyaan dadka xildhibaanaanta badan waxay ku soo baxeen operationkaas ay ku yimaadeen iyo maxaan ku dhahaa amaliyadaas ay ku dhasheen wuu iska jiraa xagasha iyo magaranaysa waa wax basiida waan u balansanay suldaanka insha Allah waa wax basiida waa saalantii waa shay dabiici ah oo ummadda hore ka dhaxeeya waan dhameynaa insha Allah ta'ala waa gacmaysaysana iyo madaxweynaha booqan doona ummadda Soomaaliyeed la hadli doona way saalantay taas Soomaaliland waxba ku mashquulin waa dad tashaday iyaga ayahooda ka tashanaya adiga waxba kaaga ma baahna aniga waxba igama baahna waa ummad tashatay marka aan ku mashquulshan inta badan ma wanaagsan anu waxaan xildhibaan qaran maanta laga bilaabo waxaan ku shaqeynayaa aragtida dawladda Soomaaliya iyo maxaan ku rakaa ama awalanba aragtida dawladda Puntland